السلام عليكم barnaamijkan gaarka waxaynu iskula eegi doonaa falcelin yaab leh oo ka dhalatay hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku beegsaday Soomaalida Mareykanka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaanu isla eegi doonaa dad cadaan ah oo warbaahinta ku jira oo si gaar ah u beegsanaya dadka Soomaaliyeed iyo ku cunsuryeynaya luqadda deegaankooda iyo goobta ay ka yimaadeen muuqaalo la yaab leh ayaad ku arki doontaa barnaamijka waxaanu sidoo kale barnaamijka ku dhex arki doontaa oo aan idinku diyaarinay dad Soomaaliyeed oo magac leh oo u jawaabay Donald Trump oo ay ugu dambeysay Ilhaan Cumar oo weerar yaab leh ku qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar kale isla barnaamijkan waxaanu iskula eegi doonaa Minnesota waxa ka dhacday arrin weyn oo dad badan oo Soomaaliyeed iyo dadweynaha muslimiinta Minnesota ay aad u soo dhaweeyeen gabar Soomaaliyeed oo ka tirsanayd booliiska Minnesota ee dalka Mareykanka oo la dalacsiiyay tani waxa ay ku noqonaysaa darbaaxa yaab leh oo ku dhacaysa Trump iyo kooxdiisa waxaan idin hayaa gabadha iyo dalacsinta la dalacsiyay macluumaad ku saabsan qodobada sidoo kale aad ku maqli doontaa barnaamijkan waxa kamid ah Cabdi Iftiin oo kamid ah Soomaalida Mareykanka degan oo baryahan aad dadka Soomaaliyeed ay uga hadlayeen xadgudubka uu u geystay dadka Soomaaliyeed hore ninka waxa loogu haystay in diintu ugu xadgudbay haddana markii arrinta Trump ay soo baxday uu Soomaalida caayay ninkan waxa uu noqday qofka kaliya ee haddana Soomaalida weeraray waxa haddana yaab leh in uu waraysi siiyay nin cunsuriya oo midigta fog ah oo dadka Soomaaliyeed beegsada iyo dadka muslimiinta iyana waan idin hayaa waxa yaab leh haddana Cabdi Iftiin oo ku mamarsiyoonaya oo dhahaya dad qayb Soomaalida kamid ah difaacay sida wuxuu u dhaqmayaa siyaasiyiinta Soomaalida oo kale siyaasiyiinta Soomaalida markii albaabada ka soo xirmaan dadkay kala qaybiyaan iyana waan idin hayaa qaybta ugu dambaysa barnaamijka waxaad ku maqli doontaa qaabka ay Soomaalida Mareykanka uga falceliyeen gaar ahaan dhalinyarada ku dhalatay Mareykanka oo muuqaalo yaab leh oo aad uga caraysiyay cadaanka xaq jirka ayaan idin hayaa qaybta ugu dambaysa waxaan isku eegi doonaa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday Mareykanka xalay waxa la gubay masaajid iyo goob iskuula oo ay iskuulada muslimiinta kamid ah iyana waan idin hayaa iyadoo faahfaahsan sadii ka dhalatay hadalkii Donald Trump kaliya ma ahan cidda ka falcelisay Soomaalida waxa ka falceliyay dad badan oo muslimiin ah oo hadalka Donald Trump diiday dhinaca kale waxa jira warbaahin iyo baraha bulshada dad ku jiro caan oo Mareykan oo hadalka Donald Trump la dhacay Trump hadallada Soomaalida uu ku weeraray waxa kamid ahayd inay yihiin dad aan sameeynin integration wax la dhaho waa isdhexgalka oo kaligood baa iska iibsado faqri bay la imaadaan shaqo la'aan bay la imaadaan arrintu markay halka marayso dad baraha bulshada ku jiray warbaahinta ayaa kaamira iyo mikrofon qaatay dadka Soomaalida waa dad soo dhaweyn badan waa dad qalbi furan waa dad cid walba iska aamina waana cilada Soomaalida hayso bal waxa daawataa ninkan wuxuu dhexgalayaa dad Soomaaliyeed markaasuu su'aalo weydiinaya wuxuu leeyahay English ma ku hadashaan waliba waxay beegsanayaan Soomaalida da'da ah dadka waaweyn odayaasha dumarka da'da ah bay beegsanayaan oo ay aaminsan yihiin inay English aqoonin ilaa Soomaalida oo dhan English ma taqaan Mareykanka joogto hadal sax ma ilmo ku dhashay jir Soomaaliya Mareykanka dad ku koray jir dad jaamacada ka baxay jir dad booliiska ku jira jir dhaqaatiir baa jir injineer jir lawyer jir dad siyaasadii ku jira jir adduunkii waxay ka gadaayaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed inay Soomaalida English aqoonin oo everything maxaa dhacay markii bal aan isla eegno waxa dhacay sida aad arkaysaan bal waxaad ila dhageystaan ninka su'aalaha uu weydiinayay dadka Soomaaliyeed siday u falceliyeen immediately. Could I interview you? Okay, sorry. Okay, this will be fascinating. Do you speak English? Do you speak English? Somali. Do you speak any English? French. French? Bonjour. Somali? French. Okay. Can I interview you in French? Hey. What are you doing, guys? Doing news report. Huh? No. What do you mean no? It's America, no? Puis-je vous interviewer in François? He doesn't speak French. Maku ware san kana af Somali? Ma akhrin. way intaasaan ku soo qaadanayna ninkan marka dadkii qaar waxay leeyihiin English kuma hadla Faransiis aan naqaana qaar kuma fahmin buu leeyahay markaas uu leeyahay meeqa sana joogtaan maxaa u baran weyseen luqadda kaliya isaga kaligiis ma ah marka
dadka Soomaaliyeed qof aysa aqoonin inay u jawaabaan ma ahan qof kaamira microphone to ajnabiya inaa u jawaabti sax ma aha albaabada laga xirtaa wala iskaga dhaqaaqaa you don't need inaa u jawaab haddana daad luqad aqoonin shib baaba la iska dhaha muu baahnid inaa u jawaabti dadkeeni qaar baa waxay iska tuurayaan English iska soo riixayaan oo tabartooda ahayn Minnesota 20 years iska dhaha you don't need to respond inaa jawaabtid muu baahnid aamus xoog kuma qasbi kar af gacanta ma gelin karo waliba qof weyn markaa tahay waali tahay ha u jawaabin qof ajnabi ha u jawaabin albaabka ka dhaqaal iska soo wax uu ka gudbiyo ma laakiin marka uu ninkan rabo inuu xaasidnimo ama si qaldan uga faa'iideysto fariin qaldan gudbiyo hadalladaadii buu been ka soo qaadanaya intuu rabo ka soo qaadanaya adiga iyo dadkaaga sumcadii u tiraya sheekada yaab kale socota waxay tahay kuwa cadaana ayaa waxay soo qaateen macluumaad aan jirin oo aan sax ahayn oo aysan xaqiijin karin waxa iigu daray ninkii dhahay Soomaalida kaliya kuma ahan buu dhahay kuwa ceerta iyo shaqo la'aanta iyo ma aragtay musuqmaasuqa la jooga Mareykanka wuxuu leeyahay Soomaalida in 70% kuwa jooga 69% kuwa jooga Denmark waa shaqo la'aan ceer bay qaataan kuwa Sweden jooga waa saas kuwa hebel jooga kuwa uu soo tirinaya markaas wuxuu leeyahay sida Donald Trump uu sheegayna Soomaalida Mareykanka joogta Minnesota ceer bay ku nool yihiin waa khiyaanayaal waa faqri wax ma bartaan iskool ma aadaan shaqo ma aadaan waxaan nasiib daraa baraha bulshada markaa fiiriso dad Soomaaliyeed ayaa dadkii waxaas dhahay u marqaat fura waxay leeyihiin waa run been miya Donald Trump waxna laga sheegay been miya waxna laga sheegay waa been waxna laga sheegay waa been musuqmaasuq inay beentaan ku sheegay haday run tahay musuqmaasuq Donald Trump ayaa ka musuqmaasuq badan canshuurtii lagu haystay sanadkaas madaxtinimada ka horeysay inuu wax dhacal lagu haysto kufsi lagu haystaa beentiisa xaq ma ninka ugu beenta badan waa adduunka maan dadka jiro qiimeynta hadda socoto ninka been badan Donald Trump inuu jiro madaxweynayaal ag fadhiyo been ka sheega madaxweyne uu heshiis la gelin ag fadhiyo la heshiis la galay ilaa ay dhahan may sidaas ma ahayn ra'iisul wasaaraha Canada ku sameeyay madaxweynayaal badan buu ku sameeyay dadku caaya uu ku xadgudbaa aqli darro hadii la dhahana waa ninkan caafimaad darro iyo lidishada waa nin inuu waaleeyay fuel isku haysto ninkaas caayu sheega adiga aamini sidoo ku aamini yaa sheegay inaan annaga adduunka ugu faqrisannahay yaa u sheegay inaan annaga wadamada aan tagi kul ceer aan ka qaadan Ingiriiska Mareykanka madaxan ka nahay Ingiriiska waxaan ku kansalaan ku leenahay waynu ka shaqeysanaa waxa laga bartaa jaamacadaha ka buuxan ardaydeena caruurteena hooyooyinka Soomaaliyeed ilmo wax bartay soo saaraan afar qof iyo laba qof hadii noloshaada lagu koobo ha aqbali generation dhan baa ku dhalatay reer galbeedka ma ahan dadku ayagoo waaweyn soo tagay oo shaqo raadin la ceer ku qaatay Soomaalida kuwaas kaliya ma matalaan Jamaican anuguna loo ajnabi ka Nigerian anuguna loo ceer way qaataan Turkiya anuguna loo haye Kurdish anuguna loo way qaataan adiga kaliya in lagu beegsado adiga la marqaato furto dadnimada adaa isliiday qofka markuu asaga isliido adduunkana waa la liidaa marka qaybtaas meesha uga gudbo qaybta labaad ee barnaamijka aan ku soo qaadanayno waxay tahay waxa jira dad Soomaaliyeed oo iyagoo is ogeyn ajnabiga u rufiyaan jawaasiis u ah waxa kamid ninkan Cabdi Iftiin Ballah ninkan horay diinta ugu gafay diin loo gafay oo raali gelin laga bixina waxa la dhaw jiro qofku waa inuu Ilaahay u toobad keeno markuu toobad keeno falku ku jiro oo ka hara falkii uu ku jiro oo ka hara ninkan isagoo markii horeba dugsiyada Quraanka uu u gafay diintii u gafay ummadii u gafay buu haddana ayaamihii dambe wuxuu noqday wadani mushkilada jirta waxay tahay qofka Soomaaliga ah hadii la ooyana waa ooyna hadii la qoslana waa qosla rational ma jiro aqli intuu fikir qofka uu dhaho war qofkan wuxuu sheegaa maxaa ka socona qof baa wadani isaga ka dhiga Ethiopia nacab kule adduunka ninka umad Soomaaliyeed saas ku kasbaday Ethiopia nacayb ajnabiyan la dagaal dhinaca kalena ajnabigu la dagaalay Soomaalida ajnabi u geeyay waxaa lagu qabsaday in nin cunsuri ah oo dadka Soomaaliyeed interview intuu u qaatay uu ku dhaay xawilaadihii la diro masaajidda gudaheeda laga diraa yaa loo diraa iska qiyaas buu leeyahay markaas qaar difaacaya waxay leeyihiin English lama fahmaayo ninkan wuxuu turjumayaa ama uu fasirayay warbixin jaraa'id ku qornay waa been waraysiga u dambeeyay hadda Brit Somali TV uu ka qaaday
waxa uu ku qirtay in uu hadalkaas dhahay uu ku qaldamay ma ogeen buu ku leeyahay inay waxaan ka dhalan karto ama dhibaatada ka dhalan karto bal ila daaw halka horta laba mid hadduu qalad iga dhacay oo ID-gan hadda la qaadanayo lagu wada xukumo dadka taas ma aan ogeen waxa raba Soomaalida inay raali geliyo ma ogeen taas xaqiiqo markii laga hadlo aniga lacag waa diraa ilaa hadda qoys hooyo walaal kulli waxa aan isticmaalno waa waxaad ka warantay arrinta masaajidada ayaad ka hadashay iyo xawaaladaha waxaad tiri halkan lacagta laga diro Mareykanka qofka dira waa naqaanaa ama green card ha haysto ama qof dalka sharcigiisa weyn haysta laakiin qofka qaadanaya ma ogin that's 100% false way wad ogta maxaa u tiri saas arrinka masaajidka niyo horta qof bin aadina ahay oo mararka qaar wax hal sano ka hor ahaa waxay ila muuqdaan in weli sidii ay u dhacayaan u socdaan haddii dadka reer Maine masaajidkaas aan ka sheekeynayo uu xirmay ganacsigii ku dhex furnaa oo hadda ka hor aniga aan isticmaali jiray intaasaynu ka soo qaadanaynaa cidii u baahan waraysigii soo dhammaystiran Brit Somali TV uu ka heli karaa Cabdi Iftiin marka waa nin caadaystay in uu diintii xeyrinin uu iska ilaalin hadallada ku hadlaa horay kaniisad iyo goobo iyo meelo maaragtay barnaamijyo lagu sameeyo buu ummadii dhaqankoodii diintoodii habnoloodkeeda ugu gafay ma ku dhahayo dugsiyada iyo madaarista iyo meelaha dambiye kama dhacaan oo xadgudub ma jiro kuma dhahay way jiraan wayna dhacday oo cidii dambi gashay in la qabto laakiin inta faa'iido oo dadkii diintoodii caqiidadoodii iimaankoodii loogu ilaalinayo dad waxa jira target garayst hal dugsi ama hal macallin oo qalad sameeyo dugsidii masaajidii ummadii dacwadii oo dhan baa la caynaya waxa laga yaabaa fanaan hadduu wax yar sameeyo in maalin ama saacad yar ay socoto waxa laga yaabaa nin siyaasi hadduu wax yar sameeyo inay maalin saacad socoto ama nin ahlul quraan ama shaaqa qalad yar ma ka dhaceen khalaas ninkaan culimadii masaajidii dacwadii waliba waxa yaab leh xilli ummadda Soomaaliyeed uu gaal weerarayo oo afkiisa ku duqeynayo buu intuu soo istaago wuxuu leeyahay xawlaadaha masaajidda lagu dhaxay iska qiyaas intee loo diri karaa macnaheedu waxa waa koox argixisaan loo diraa uu leeyahay hadda ninka isaga intuu soo fadhiistay wuxuu leeyahay ma ogeen saas inay tahay masaajidii waliba ku sii adkeysanaya in laga wareejiyo xawlaadaha masaajidda ma meesha lagu dukada xawlaad lagu haya mid kale xawlaad in maartay masaajidka qayb kamid ama meel kamid oo dukaana oo banaanka ama running cost masaajidka lagu sameeyo madiin baa diiday qofka masaajid jooga inuu shaqaysto yaa u diiday sheekha inuu lacag shaqaysto yaa u diiday yaa ku sheegay culimada nin sheekh hadduu shaqaysto ma argixisaan waxay ku tusaysaa dagaalka diimeed ee lagu jiro waayo waxaas cajiib raali gelintiisa sida u dhacday ma ogeen haddii ay tahayna intuu soo istaagay ilaahayna dambi dhaaf ugu weydiisanaya ummadda Soomaaliyeed oo ka raali gelinaya qaladkii ka dhacay mana soo noqonaysa qaladkaas waxa cajiib qofka markuu qalad galo haddana qaladkiisa inuu qiil u raadinayo oo maalmahan oo dhan qiil u raadinayo qole hebel baa been iga sheegtay dad baa marka uu kasbanaya waa dhaqanka siyaasiyiinta qabaa'ilada beelaha laga awood badan qof beel kasta qof kasta oo Soomaaliyeed la dulmiyay adduun iyo aakhiraba dulmigiisa cidii dulmis ilaaha ka soo saara you don't need adiga uma baahni dadku uma baahna dadkaas inay ku difaacaan ayagana kuma difaacayaan ilaa marka ay maado Soomaalinimada iyo diintooda ilaahay iyo diintooda uga qiimo badan wax walba wuxuu rabaa siyaasiyiinta waxay sameeyaan si dadka ay u kala qaybiyaan qayb dad kamida bay waxay dhahaan idinka idin difaacay hadda koor dartiina la haystaa dartiina la weerar ma taagna meesha beel hebel difaacday beel hebel wax ka sheegtay beel hebel wax ka sheegtay waxa laga hadlaa Trump ma kala yaqaan Soomaaliga ma aragtay meeshu ka yimid markina adiga ku soo jeedist heer hadda dadka Soomaaliyeed lagu dhax bursanayo warbixintii ugu dambeysay Mareykanka iga soo gaartay waxay ahayd in dad Soomaaliyeed min walaal Soomaaliyeed oo Mareykan jooga ay sheegay oo dadkaas qaar kamida warbixintoodii ila soo wadaagay dad ay u dhinayd shahaadada dhalashada kaliya inay xaraystaan u soo baxdaa laga cancel application-koodii dalabkoodii laga cancelay waa loo diiday dhalashada loo diiday qaar la daba socdaa la eryana qaar cabsana maanta in adigana ku sii jeedisid dagaalkii ku socday waxay ku saysaa dadnimada iyo dadnimada meesha ka jirto waayo qodobada ugu dambeeya waxaan ugu tagi doonaa masaajidka la gubay iyo goobta uu ku yaal iyo magaciisa iyo sida ay wax u dhaceen waxaanu sidoo kale isla qaybta iskula eegi doonaa Ilhaan Cumar iyo jawaab ay Donald Trump siisay
oo aad warbaahinta Mareykanka ay maalmahan u hadlayaan. Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka dalka Mareykanka ayaa waxa ay si yaab leh uga jawaabtay waraysi ay siinaysay mid ka mid ah telefishinada dalka Mareykanka oo maalmahan si weyn magaca Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee Minnesota haddaad YouTube Google aad geliso Soomaali Minnesota ku qorto intaas oo warbixin ku soo baxayso. Ilhaan mar la weydiiyay siday u aragto hadallada Donald Trump waxa ay sheegtay in Donald Trump uu ku qarinayo doodda iyo warka Soomaalida ku saabsan ceebta haysato. Waxay tiri Trump uu ceebaysan yahay guul daraystay siyaasadiisii taarifkii cashuurihii dawladdu kula dagaalay hoos u dhacay dadkii noloshoodii qaali noqotay. Mareykanka sumcaddii Trump way dhacday si dadkii uu wareeriyo wuxuu rabaa inuu ku qariyo xaaladda Soomaalida. Dhinaca kale waxay Ilhaan hore u sheegtay in Donald Trump uu ku doonayo inuu ku qariyo kiiskii Jeffrey Epstein. haddase waxay leedahay Donald Trump maadaama uu guuldarro weyn wajahay oo uu ceebaysan yahay Soomaalidu rabaa inuu ugu waraysto uu ku khafiifo Soomaalidu ku khafiifo bal ila dhageys qayb ka mid ah hadalka Ilhaan Cumar oo ay telefishinka waraysiga ay siisay. Obsession with me and the Somali community is really unhealthy. It's creepy. And I hope that he gets the help that he needs. It sounds like he is trying to deflect from the failures that he's had as president. His immigration rates are not going in the way that he's expected. We know that the tariffs are not working to make life affordable for Americans. We know that he is... waa rajaynaya taasi inaad wada dhamaysateen. Taasi waxa ay Ilhaan Cumar oo ka faaloonaysay habdhaqanka Donald Trump oo si yaab leh u sharaxday. Waxay ku sheegtay inuu yahay nin qarinaya macnaha qasaaraha uu ku dhex jiro fadeexada u dhex fadhiyo marka Soomaalidu toosh ku shilaya. Haddaba hadalka Donald Trump waxaa ka dhalatay falcelin aad u weyn oo dad badan oo reer Mareykan ayaa maaragtay cadaana oo ajnabiya ayaa dadkii Soomaaliyeed meel walba xitaa kuwa madow ku jiro waxyaabaha la yaabis waxaa ka mid ah mid Nigerian aan arkay xalay oo Englishkiisaba my brother we are trying to make Somalia trying to lead this country ule macnaha Soomaalidu wuxuu leeyahay way dhacayaan Mareykan iska dhigaa in Mareykan la dhaco iska dhigaa mid Hindi arkay they are trying to take this money this country our country is to losing Somalia is coming. Who are you my brother? Adiya tahay adi Hindi tahay yesterday Malaya Kerala ka imaaday New Delhi ka timid Soomaalida rabtaa inaad ka haysato Mareykan adiga Abuja ka imaada daraad Nigeria ka timid Soomaalida rabtaa inaad ka haysato Jamaican ayaa wuxuu iska dhigayaa inuu Mareykan yahay Soomaaliduna wuxuu leeyahay wadad waxaan qabsanin hal qof asaga Congress ugu ma jiro Nigerian hal qof Nigerian Congress kuma jiro how come adiga dad oo shalay imaaday sheegoys ay kaaga hormareen kuga jira siyaasadda ku jira ilaa Canada wasiir laga noqday maxkamadda cadaaladda adduunka madaxweyne laga noqday dadka aad duraysaan waa dadkaas waxa cajiib ah dadkan inay ogeyn qiimiga ay leeyihiin inta yar ka dhiman isfaham darrada midnimo la'aanta qiimigii iyo qayimkii uu soo noqonaya mar dhow insha Allah waxa arki doontaa Soomaaliya oo loo soo dalxiis tagay loo soo ganacsi tagay fiisaheeda la ayaa maalmo la raadinayo airport Soomaaliya lagu dhax wareeray ila shidaalkii soo socdo bogta shidaalkii soo socdo barwaaqadii soo socdo ya gabdhaha Soomaalida ajnabiga rabaa inay guursadaan si baasaboor ugu helaan ya nimanka Soomaalida gabdhaha ajnabiga ay raadinayaan adagii ama ka dhuuman doona mar dhow macnaha shidaalkii loo qada barwaaqa imaanayso siyaasiyiinta waaweyn oo bahasha fahmi la adduunku waxa ka socda garan la khiyaanada iyo dabinta la isu dhigay bahdilaada fahmi la way iska baxayaan Soomaaliya way isbedeli doontaa dad wax bartay qurbaha ka imaaday dhaqaalaha haysto wax fahamsan xirfado kala duwan soo bartay maadooyin kala duwan soo bartay takhasuskoodu kala duwan yahay badalku wayna bilaabatay saraxa hadda Muqdisho waxa ku taala wadadan oo la dhaho wadada qurba joogta Allah diaspora road Allah talax ku taala xayaat gadaashiis meelo badan ganacsiyo gobollo badan oo dalka mid ganacsiyo waaweyn ka furan qurba joogta ay fureen systemkii maqaayadaha adduunka ka socdo wuu dhismaya 10 sano ka hor meesha joogta ma joogto waaye qaybta markaynu meesha ugu gudubno aan u gudubno qodobka xiga barnaamijka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha joogto bashar yaro wiil Soomaaliyeed haday waxaan dhageysanahay dhahayo xalka wuxuu ku jiraa xalka labada dawladood Israa'iil ku dhibaa
macnaha waxay ku tusaysaa isbedelka sida yuhuudi maaragtay bay weerar wadaan way duqaynayaan soomaalida weerar baa ku socda iyagana ma joogsanayaan way jawaabayaan israa'iilay ka xanaajinayaan waxay leeyihiin dadkan fursaddii soomaalida waxay ku jeediyeen weerar ku socday israa'iilay ku jeediyeen waxaa bislada nimanka ama falastiin ay dhacan ka taageerayaan qodobka ku saabsan waxaynu toos u galaynaa masaajidka maraykanka ku yaala ee xalay la weeraray masaajidkan waa la gubay waxaase cajiiba masaajidkan xilli dambe saq dhexe ee labadii iyo barka meelaha ayaa la weeraray waxa uu masaajidkan ku yaalaa Prayer Lake goobta la dhaho waxaana masaajidka magaciisa loogu yeeraa Baytul Xikma waxaa sidoo kale ku yaala madaraso iskuul islaamig ah oo ardayda ay ku bartaan maadooyinka kala duwan masaajidka ayaa la sheegay in masaajid muddo halkaas ku yaala inuu yahay booliiska deegaanka ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan ciddii ka dambeysay gubitaanka la gubay masaajidkaas weli lama hayo xaqiiqda dhabta ee ka dambeysay dabka iyo gubitaanka masaajidkaas soo gaaray waayo walaalahay saaxiibada qiimiga loo qaybta ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo xilaynaa gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan booliiska gobolka Minnesota isla markaas ka tirsanayd Minnesota State Police oo magaceeda lagu sheegay la Khatro Maxamed ayaa la dalacsiiyay noqotayna lieutenant macnaheedu waxay tahay gabadhan cutub ka tirsan booliiska dalka Mareykanka qaybdan ay hogaamin doontaa iyadoo ugu sareynaysa sheekada yaab kale ayaa waxa ay tahay gabadhan dalacsinteeda waxay ku soo aaday xilli Mareykanka Donald Trump iyo xagjirka ay si daran Soomaalida ay wax uga sheegayaan oo aflagaadeynayeen uga dhigayeen dadaan macno lahayn dadaan qiimo lahayn dadaan bulshada ku jirin marka tani mar kale waxay ku noqonaysaa dalacsinta Khadra Maxamed oo fursad ay u tahay bilow ah tani inay sii dalacdo si ku meel gaar ah ay hadda ku sii noqonayso oo ay marka ilaa ay ku gaari doonto Cornell email ka sii sareyso iyo xilalka waaweyn gabadhan waxa ay tusaale u tahay oo ay hadda warbaahinta wax ka qorayaan in Soomaalidu ay ku jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada dalka Mareykanka goobaha ay ku dhasheen ama ay ku nool yihiin ay wax ka noqdaan waxna ka qabsadaan walaalahay saaxiibada qiimiga leh barnaamijkii fiidnimo inta aynu ku soo xiranaa tan iyo kulantii dambe nabadgelyada Ilaahay dushina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh